sidaan ognahay muran ayaa wuxuu u dhaxeeyaa Puntland iyo Somaliland arrinta laftigeeda dawladda federaalka Soomaaliya way soo hadal qaaday adigu madaxweynahan ishaysiga arrintaas sida u aragtaa anigu waxaan u arkaa waqooyiga Somaliland Soomaaliya oo dhan baa bilaadal Soomaal horta ah waqooyiga nimanka maamulka u haya maaha anigu shacabka oo dhan sheegi maayo shacabka qaar badan oo fiican oo midnimada raba oo federaalka raba oo magaciisa raba ku jiro waa quba laakiin nimanka maamulka u haya ba aan wax kale ka hor cadayn inay goostaan maahay oo Soomaaliya ka go'aan si ay u go'aan oo loo aqoonsadana waxay raadinayaan gobollo inay go'aan aan rabin intay xoog u goostaan marka in la aqoonsado hadda ka hor baan ka hadlay taas suuragali mayso waxaan kula taliyay walaalaheen war xoog wax lagu kala qabsaday ee wada xaajood iyo wada hadal baa wax lagu gaaraaye kala baxa ciidamadiina gobolada xoog ku qabsateen waayo idinkii aan go'i karin ummadda Soomaaliyeed go'itaan idin ogolayn haddana inaad tiraahdaan qaar baanu xoog inta ku qabsanaano markaa la go'aynaa macquul ma waxa dad waaweyn aqli ay hindisaan runtii ma aha haday sidaa yeeli waayaan hada waxa iman kara waa un dagaalna markaa dawladda mas'uul ka noqon maysa dagaal hadii meeshii maado waxa meesha laga qabsadaa Puntland kaliya ma waxa loo jeedaa oo in la dumiyo la rabaa oo qoladan koonfur ka dagaalamaysa oo maaragtay muqaawamada la baxday iyo maamulka waqooyiga ka dhisan oo riyaal madaxda ay heshiis ku yihiin Puntland iyo dawladda federaalka oo Soomaaliya labadaba aan dumin si markaa qolada goosasho uu soo gasho qolada kalena dawladdan qaar badan oo yani rabo oo raalli ku ah inuu ku jiree aan koonfur dawladda uga dhalaan uga jirin waxay heshiis ku yihiin xaraam baan u arkaa intaad xoog wax ku qabsatid inaan laga yeelin waad ogtahay ilata hadda inta garan waayeen anigu wallahi waxay garan karaan garan mayee waan la talinayaa waxaan leeyahay waray ciidankiina ee intaan arrinta xumaan Soomaali dagaal kale oo hor leh hagayeysiinin ciidankiina meesha kala baxa hadda kala bixi waayaan marka dawladii federaalka ahay dalka dhan ay daafacday way dawladda federaalka iyo Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed inteeda aad u tiro badan yeelimayaan sidaas ay nimanku wuxuu raba mar haddii yeelayn oo wanaag laga waayo oo inay wax maartay fahmaan laga waayana waxa imanaya waa dagaal weey waxaan rajaynayaa intaan la dagaalamin inay inta fahmaan tilaabada ay qaadeen dhibaatada ka iman karta ay siyaasadooda bedelaan oo ciidamadooda ay kala baxaan meesha gobolka qabsadeen ee Soomaaliya